الرحمن الرحيم. أولاً إلهي بأمهد بعد مهد إلهي صحافة دينا أنا أمانت هالكن إذن كياري أنا جو عبد إسماعيل بوس قدوميه بنك دولة بولان سيد الله سعوتان بنك دولة بولان وهيئة مدح بنان ودستوركو qodobka 110 firqadiisa saddexaad ayaa madaxweynaha dawladda Puntland ama xukuumaddu lagu magacaabaa gudoomiyaha bankiga dawladda Puntland waxaana la mariyaa golaha baarlamaanka oo xasaanad siiya ka qaadistiisana sidaas oo kale madaxweynaha ayaa isagoo sababeynaya ka qaada xilka waxaana la mariyaa golaha baarlamaanka oo ansixiyo xilka qaadistiisa anigu kursigaas bankiga dawladda Puntland anigoo gudoomiyaha ah oo madaxweynaha dawladii Cabdiweli uu ii magacaabay xasaanadna leh baa waxa dhacday adigu wiil ka hor bishan January 8 in wareegta soo baxday lagu soo magacaabay gudoomiye cusub wareegtadaas oo la leeyahay gudoomiyihii bankiga dawladda Puntland waxaa loo soo magacaabay gudoomiye cusub wareegtadaas aniga si official ayuguma imaan media baa la soo dhigay ujeedada aan idinku yeeray waxay tahay inaan halkan ka cadeeyo inaanay wareegtadaas wax aniga iga quseeya aanay jirin magacayguna uu ku qornayn qaabka loo soo marayna aanay ahayn qaab waafaqsan sharcigii u yaalay dawladda Puntland iyo qodobkii magacaabista iyo ruqsaynta sababtoo ah waatan wareegtadii ama xeerkii dekreetadii la soo saaray waa xeer number 4 oo soo baxay 8 bishii January oo madaxweynuhu ku soo magacaabay ninka magaciisu ku qoran yahay sideedaba hadii xeer iyo wareegto iyo dastuurku ay iska hor yimaadaan wax ka soo qaad male sababta labaad waxa weeye wax aniga tan hadeerta iga quseeya ma jiraan magacayga kuma qorna waxa kale loo baahnaa in madaxweynuhu uu dalbado inuu aniga xasaanada iga qaado isagoo sababeynaya sababtu xasaanada iga qaadayo way shuruuday leedahay tabadna golaha baarlamaanka la ii gudbiyo la ii codeeyo hadii lagu guuleysan xasaanada la iga qaadana xasaanadii la iga qaado tabadna madaxweynuhu uu soo magacaabo gudoomiye bank markaas uu yimaado xafiiskii gudoomiyaha banka magacaabista dambe hadii aan dariiqa la marin warqadani waa xuquuq laadlaada waayo replacement male meel la geeyo male warqadii ka horeysay aniga laga qaadi lahaa xilka iyo xasaanada ma ay waxaad sheegtay in aysan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga marka xilka qaadista madaxda dalku uma cuskadeen bilaa sabab marka bal dadka u faahfaahay qaabka ay waafaqsaneen maxay tahay aad ku doodayso waxaanay u waafaqsanayn magacaabista gudoomiyaha bankiga iyo xilka qaadistiisaba xeer baa 110 article 110 qodobkiisa firqadiisa saddexaad ayaa qeexaya waxa uu leeyahay gudoomiyaha bankiga waxa magacaaba xukuumadda waxaana ansixinaya baarlamaanka ruqsayntiisa iyo ansixintiisaba baarlamaanka la marinaya sababta awgeed
aniga in layga qaado bay xasaanada kursigii aan baneeyo dabadeedna markaa loo soo magacaabo gudoomiye baan meeshi waxay ahayd intaan xeerkani soo bixin mid kale tani waa xeer oo xeer iyo haddii ay iska hor yimaadaan qodob dastuuriyana dee waxa weeyaan ma shaqaynayo marka waa xuquuq laadlaada aduu xilkan yaa kala wareegtay sideese ku qabatay marka hore ilaa cabdiweli baa tilmaantay madaxweynihii hore Puntland inuu ku magacaabay sababii lagu cuskaday in lagu magacaabo booskan aad u tagtay iyadu sidee sidaan ba ka duwaneed hadda laga qaaday aniga waxaa ii magacaabay cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynihii hore dowladda Puntland wuxuuna igu magacaabay dekreeto madaxweyne oo isagu uu soo saaray golaha baarlamaanka ayaa la geeyay xasaanad baana la isiiyay sidaasaana golaha baarlamaanku igu codeeyay aan ku fariistay kursiga markaasna gudoomiye baan ma jirin waa banaanaa kursigu waa meesha waa banaanay qof laga qaaday xasaanadii laga xayuubiyay meesha ma jirin dhowr sanadood gudoomiye la'aan baa hay'adda tani ku shaqeynaysa oo agaasima maamulay sababta waxa weeye anigu aan ku imi meesha waxay dekreeto madaxweyne oo soo martay golihii baarlamaanka oo la ii codeeyay ayaan xasaanada ku kasbaday gudoomiyihii bangigana ku ahay kuna fadhiyaa meesha muddadii aad haysay gudoomiyaha banka ahayd Puntland xasliga lagu xasan doono aad ka qabatay bangiga waxyaabo badan baan ka qabanay aniga keligay kama qabana tiimkii la shaqeynayay iyo shaqaalahayga waxyaabo badan baan ka qabanay wuxuu ahaa bangigu hay'ad waqti badan shaqeynaysay oo dawladda Puntland la dhisay waxayna ahayd system manual oo mataqaanaa lagu shaqeynayay shaqadii hore ee mataqaanaa bangiyada ku shaqeyn jireen hadda horumar weyn buu marayaa waxaanu dhisnay dhismayaal badan waxaanu sameynay dayactirro badan waxaanu sameynay tareerino badan iyo kor u qaadis badan oo mataqaanaa shaqaalihii aanu mataqaanaa tareerinay waxa hay'ada international oo sida World Bank iyo Capacity Injection qayb la yiraahdo ay naga caawiyeen oo shaqaale badan oo tayaysiin noo shaqaaleeyeen waxaanu furnay xafiis aanu mataqaanaa ay noo shaqaaleeyeen hay'adda World Bank oo la doonayo in system automatic laga dhigo waxaanu haddeerta sameynay system automatic oo aan ka guurin manualkii oo shaqaalihii mushaarkii lagu bixinayo oo shaqaalihii oo dhan haddeerto gidi intooda badan oo dhan wax yar oo ama maqan ama mataqaana fasaxay ku jira mahaane inta kale oo lagu meel mariyay oo lagu bixinayo payment iyo mushaarkii waayahay marka u soo noqono xilka qaadistaadii hadda waxa faaftay oo faafin la galiyay in xilka laga qaaday aduguna waxaad hadda sheegaysaa in sharci darro loo maray waxaana ku magacaabay madaxweynaha ku magacaabay sida aad qidhay marka waxaad leedahay faafin in la geliyo ma ahayn ilaa baarlamaanka la mariyo xukuumadda la mariyo kadib gudoomiyaha la magacaabayo ku bedeli doona marka kadib faafin la geliyo baa hadalka ugu dhigan yahay miyaa ma horta sideedaba gudoomiyaha banka waxaa magacaaba xukuumadda ayaa soo magacaaba markuu soo magacaabo procedure loo maro oo loo raaco ayay leedahay haddii gudoomiye xasaanad le meesha uu fadhiyo waxa weeyaan waa in gudoomiyihii hore xasaanada laga qaadaa baarlamaanku ansixiyaa xasaanad ka qaadkiisa meeshii la baneeyaa marka gudoomiyihii kale ee madaxweynuhu soo magacaabay la soo baarlamaanka la geeyaa xasaanadii la siiyaa inta loo codeeyo maxaad yeelaysaa hadda marka haddee waxaan yeelayaa anigu xafiiskaygii baan joogaa shaqadaydii baan wataa gudoomiyihii banka ee Puntland baan arrintaas soo faragelisay ma jirtaa hay'adaha sharciga ileen khilaaf baa waxa muuqda xagga madaxtooyada iyo adigu oo aan aqbalin xilka qaadista inuu jiro hay'ado kale dalka jooga garsoor baa jira sharci dejin baa joogta cid soo faragelisay ma jirtaa wax faragelin oo haddeerto aan arkay waxaa jirta gudoomiyaha ninkan cusub ee la soo magacaabay ayaa maanta xafiis kale oo xafiiskayga dhinaciisa la keenay
la fariisiiyey ciidan iyo askar beeleed loo keenay oo aan ahayn ciidankii bangiga u qornaa ee shaqaalaha u ahaa u qornaa aan ahayn oo xafiiskaygiiba xafiis kale laga dhinac furay. adoo xafiiskaaga ma tagtaa? anuu xafiiskayga waa tagaa, saaka u dambaysay baan tegey, xafiiskaygii baan fadhiyey, laakiin waxaa meesha jirta in xafiis kale laga dhinac furay oo la keenay guddoomiye cusub oo la keenay askar oo mataqaanaa aad moodo meeshii inay tahay meel lagu habsanayo oo kale. hay'adda sharciga oo markaa adigu xiriir la sameysay ma jira arrintan ama baarlamaan ha ahaato ama garsoorka ha ahaato soo fargeliyay arrintan? waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto run ahaantii warqadda tani waxay ka soo baxday madaxweynaha dowladda Puntland. sida ay ka muuqatana waa warqad u muuqata in madaxweynaha barashar lagu saaray, isagana mataqaanaa culays lagu saaray, taxadar badanna uusan jirin, lagana dhaadhiciyey guddoomiyaha baanku inuusan xasaanad lahayn, si dad yar oo mataqaanaa hawsha tan si khalada u geliyey uu isagu ku magacaabay. sababtaa awgeed waxaan uga faa'iidaysanayaa madaxweynaha dowladda Puntland, isagaa madaxweynihii dalka ah. waxaan leeyahay madaxweyne hawshan in soo mataqaanaa saxo iyo golaha baarlamaankaba in hawshaa dib loo saxo oo saxid lagu sameeyo. waxaana saxideeduna ku suura galaysaa oo sharcigu uu tilmaamayaa in aniga xasaanadii layga qaado, madaxweynuhu soo codsado in mataqaanaa xilka layga qaado, xasaanadana layga qaado, golihii baarlamaanka leh procedure-kiina aan dhamaysto, dabeedna guddoomiye baan haddii la doonayo in meesha la baneeyo loo soo magacaabo.